oo ninka qabiil ka dhashay qabiilkan inta badan wuxuu isticmaalaa lilximaaya inay ilaaliyaan mujtamaca waxyaabo badan aanu ka helayna uu ka helaya waxaan aad u xasuustaa eray nin dhallinyarii maalin uu jabuuti iga yidhi nin dhallinyaro dhugdhuglay wata ayay idhaahdeen waxaad bixisaa insurance-ka gal markaasuu doodayo wuxuu lahaa anigu insurance-ka geli maayo waayo baa la yidhi wuxuu yidhi anigu reer baan ka tirsan oo qaadhaankiisaan bixiya marka baashan hadday cid wax yeeshana reerkunbaa bixin haddii kalena yacni waa dawla taxta dawla meel buu ka tirsan yihi marka wuxuu ku andacoonaya uu leeyahy anuu insurance-kan dawladda geli maayo waxaana sheegaysaana qaadhaan reer baan ku jiraa hadday baashu cid wax yeeshana reerkaa bixinaya reerku hadday cid wax yeelaana anna waxbaan ka bixinaya therefore uma baahni buu leeyahy inaan nidaamka galo ficlan qaabku u fakeraya waxbaa ka jira waayo dadkani waxay waayeen meel kale ay ku tiirsadaan waxay ku kaliftay inuu wax walba reer dabada saaro oo markaa gar iyo gardarraba inuu iyaga ka tirsan yahay reeruhu mashkiladooduna waa iska dhibaato badanta qaarkood markaan weyno cid kale buu yidhi kuwa noo dhowun baanu ku qaadnaa buu leeyahay waa markii cid kale loo waayo waxaad garan kartaa soomaalidu maxay tidhaahdaa muxuu ahaa ciddaana in adeer u lahaw walaalkaana wiil u lahaw soo mu ahayn waxaagaasi oo kalaha yacni cid walba uu iska ilaalinaya walaalkii buu leeyahay wiil u dhal kaa difaaca berrinta haddaa isagana isqabataan kuwa kalena in adeer iyo wuxuu lahaw almost waa nin raba inuu wax celiyo oo dagaalu jooga walaalkay buu yidhi haddaanan u gargaarin marka uu wax dulminayo nacasnimadayda buu ku leeyay ma berrinta marka la dulmiyaa baan u gargaaraya yacni waxa weeyaan marka horeba waa inaan gargaarka la dhinac taagay maalinta wax dulminayo haddii kale berritana waxba tari maayo buu leeyahy marka isaga la dulmiyo